food systemska caqabado waaweyn ayaa ka jiro aan la koobi karin marka caqabadahaas inta ugu muhiimsan ayaan wax yar ka taataabanaynaa value chainka qofka ugu muhiimsan oo caqabadahaas oo ugu adag oo ku dhacayso waxa waaye qofka producerska waa marka qofka producerska wuxuu la kulmayaa maalan marxalooyin adag oo ka mid ah mataqaanaa drought biyo yari waliba gaar ahaan markii beeraha aan ka hadlayno iyo xoolaha markii awaaraha ay dhacaan waxay aad u taabanaysaa qofka producerka ah ama qof wax soo saaraya sababto waxa waaye qofkaas hadduu ku tiirsan yahay roob hadduu ku tiirsan yahay roobkii haddii la waayo macnaha waxaa arkaysaa waana maqalnaa mar walba in xoolo badan ay awaaro baabi'iyeen ama beerihii in awaaraha ay baabi'iyeen marka waxa si gooni ah u taabatay waa producerska marka caqabadaha ka jira waaye iyo hadda waxaan arkaynaa Soomaaliya in biyo fatahaad badan ay ka jirto wabiyada ama marka qaar xataa roobab badan ay da'aan daadad badan ay sameeyaan caqabadaha oo producerska ay taabanayso ay ka mid tahay marka waxa waaye flooding iyo droughtka waxyaabaha ugu muhiimsan waaye waxaa kala jiro burburkan waddanka ka dhacay iyo dhibaatooyinka jiraan jid la'aanta iyo macnaha cashuuraadkan oo xad dhaafka ah mataqaanaa oo dadkan producerska ay la kulmayaan taasna waxa waaye caqabado waaweyn waaye sababto waxa waaye maanta qofka oo producerka ah ama xoololey ha ahaado ama kalluumaysi ha ahaado ama beerley ha ahaado markii productgiisa wuxuu uu soo saaray uu rabo inuu suuqa geeyo wuxuu la kulmayaa caqabado oo xad dhaaf ah waxaa laga yaabaa wixii uu shaqeeyey uu qarash u geliyey wax la mida ama wax u dhow inay uga baxdo mataqaanaa canshuuraadkii laga qaadayo jidadka looga qaadayo marka taasna waxa waaye mushkilo aad u weyn waaye waxaa kala jiro enabling environment waxa ay dhahaan macnaha waxa waaye policieska iyo regulationska dawladda oo enforcement aan lahayn qofkii aan mataqaanaa tashiilaad helaynin oo mataqaanaa u fududaynayso inuu wixiisa si sahlan uu ku suuq geeyo ama uu ku iib geeyo investment opportunities oo waddanka aanan jirin ama macnaa value chain additions oo aanan jirin oo qofkan si sahlan qof oo wixiisa ugu qaadanayo oo sicir fiican ugu qaadanayo oo mataqaanaa uu ku kalsoon yahay uu jiro aysan jirin value chain additionska iyo financial institutionska oo meesha ka maqan laftirkooda sababto waxa waaye financial institutionska waxay doorbidayaan inay maalgeliyaan qof dhul gadanayo berrina iska gadaya hadduu rabo sababto waxa waaye waxaa laga yaabaa qofkaas inuu lacagtooda si sahlan ugu celin karo maanta hadduu wax gato oo berri uu haddana sii iibiyo lacagtii inuu amaahda inuu iska bixin karo bacdamaa qofka beerleyda ama xoololeyda riskiga uu ku jiro inuu badan yahay oo ay mataqaanaa mararka qaar ay ku adkaanayso in waqti gaaban gudihiisa inuu amaahdiisa uu ku soo cesho marka intaasoo dhan waxa waaye caqabado oo jiraan waaye oo muhiim ah iyo intaas in ka badanba waa jiraa ilaan waxa waaye security issue xataa waxa oo number 1 ka ah oo qofka uusan aadi karin ama oo يعني beertiisa ama xoolihiisa iyo meelo qaar inuusan xataa aadi karin oo wax ka soo saaran karin marka all this needs to be addressed